haddii qiray ku hayso dalkana qiimaad u hayso qulubtaadu ay lahayso qurbajoog haddii qiray ku hayso qurbajoog haddii qiray ku hayso dalkana qiimaad u hayso qulubtaad somtel tab lagugu adeegiyo toban taabo cilmi baa leh tamateediyo xooguna tabta weeye hilaacee somtel yaan la moogaanin sarcaddii adduunkee u saraysay internet adeega 4G oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda Somtel adeegan oo ah mid xawaarihiisa ama speedkiisa uu xoog u sareeyo second-kiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga iyo flashta internetka meel kasta iyo goor kasta video call 4G جندوجان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وسع ليفاندوفسكي adeegyo sareeya internet casri ah oo xawaarihiisu sareeyo qiimo macquula oo loo daneeyay dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta second kasta iyo saacad kasta ha moogaanin Somtel بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد داود ريال كسو دوادا برنامج كله او هذا كبحا تي في بولشو حرنتي سوتي مغالده هرغيسا oo xalqadii labaad magaciisuna yahay qurba jooge xogogaalso dalkaaga kaas oo ujeedadiisu ay tahay in aynu dadka qurba jooga oo nolosheena kaalin weyn ku jira xagga tacliinta xagga dhaqanka iyo xagga waxtarkaba oo runtii ahaayeen dadkii lagu baxsaday xaalado badan oo adagoo waddankeena soo marayay in haddii biidmaayo maadaama ay hawadoodu imika higsigoodu iyo dalku soo noqod badankoodu marka la eego duruufaha ka dhacayo Yurub iyo Mareykan iyo Australia oo dadka badankiisa iska soo xamaam guranayaan waxaanu ugu talagalay inaanu bal qofkaas siino xog ama war hagaagsan oo isku haleyn leh oo qof professional uu bixiyo waxaynu dhaqan iskaga leenahay haddaad doonayso inaad soo guurto ama beeraad samaysato waxaad la soo hadlaysaa dadkii dee asxaabta ahaydeen iyaguna aqoonay kugu dhaamaan ma jiraan badankooda beertii marka dadka badankiisa jar baa laga tuuraa marka annagoo u tulayna waxqabadkooda ku qiimeynayna ayaa waxaanu u soo diyaar gareynay barnaamijyo waxtar u leh oo wax ku qaadan karayaan oo waxyaalaha iyaga khuseeya ee ay waddanka la imanayaan ama ay rabaan inay bilaabaan ama ay rabaan noloshooda inay ku bilaabaan in laga siiyo war sugan oo dhaxalgal ah maanta barnaamijkayga waxaa igu martiya Professor Haliyey Maxamed Xaaji Raabi oo waddanka aad looga yaqaano oo la qadariyo oo runtii ah nin af Soomaaligeena iyo luqadda af Soomaaliga naxwaheeda jaamacadaha waddanka in badan ka soo dhigay iskuulada buugaag badanna qoray ahna dadka af Soomaaliga waqtigan xaadirkee jooga inta wax laga weydiiyo ragga ugu muhiimsan maadaama af Soomaaliga qurba joogu ay caruurtooda ku dhalashaan halkaasi ay ku dhashaan oo tacliin ajnabiga qaataan inaanshahoodu wuxuu ku xiran yahay oo isweydiinayaan ama ka sii wareerayaan talo caruurtiinu sidee ula qabsan doonaan tacliinta dhaqankii iyo dadkii
markaa xaaji maxamed ku soo dhow barnaamijkan adigoo mahadsan wakhtigaaga qaaligeedna siisay ee aad u hurtay dadka walaalaheenna ee qurba joogga ah inaad macluumaadkii aan ka siino halka luqadeenna ay marayso iyo markay yimaadaan waxay la kulmi doonaan. bal markaa intaynaan hawshaa u gelin bal waxaan doonaynaa taarikh nololeedkaagiiyo gaaban inaad wax nooga sheegto. xaggeed ku dhalatay, xaggeed ku soo barbaartay? bal bismillahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay rashiid, adiga iyo qoladan t v-guba, iyo waxaanaan salaamayaa dadkayna dhegaysanaya dhammaantii. anigu waxaan ku dhashay magaalada degmada sheekh, waxaanan ku barbaaray intaan wax baranayay ama aan miyiga joogay inta u dhexaysa barca iyo sheekh. dugsiga sheekh hoose dhexe waxaan galay 50kii, waxaan ka baxay 750kii. deeta macalinimo macalin baan noqday ilaa maanta, ilaa maalintaana macalinuman ku shaqaynay. okay. markaa tababarkii aad qaadatay macalinimo, bal wax nooga sheeg meelihii aad ka qaadatay iyo wadamadaad tagtay. iyo waxaan tababarkii ugu horeysay wuxuu ahaa tababarka loodhan jiray TTC waxaa teacher training center oo ka taagan u taagan tababarka macalimiinta, xarunta tababarka macalimiinta. waxaa markaanoo madax ahaa nin la odhan jiray sheef maxamed aadan sheef. waxaanu halkaa ku jirnay wax la yidhaahdo barnaamij degdeg ah oo about 12 weeks, 12 bilood meelahaasa. dabeetana waxaanu noqonnay macalimiin dugsiga hoose ka dhigta. markii dambena waxaanu nala siiyey tababaro la yidhaahdo tababarka on the job training, tababarka shaqada, goobta shaqada. marka fasax tahayba, fasaxa weyn oo dhan waxaana lagu ururin jiray ama sheekh ama xamuud. markaasaa waxaana la siin jiray kolba intii aanu u baahnaanahay. markaasaanu kolba ama dugsiga sarena la odhan jiray ka dhiga ama dugsiga dhexe. laakiin marla markaanu dugsiga sare nimi waxaa la furay tababar jaamacadeed. markaa tababarkii jaamacadeed waxaa loo doontay dibadda. laakiin kii jaamacadda ka horeysay iyo NCT kii xamar laga furay, National Teacher Training Center ah, dee kaas anigu walow aanan gelin ayaa isaguna jiray. marka waxaan tegey 66 baan Maraykan tegey. waxaan galay jaamacadda la yidhaahdo Eastern Michigan University. waxaan ka soo baxay 70kii. waxaan imi xamar. marka maxaad ku soo qaadatay jaamacadda? waxaan soo baaqaday wax la yidhaahdo luqadda ingiliisiya. luqadda ingiriisiga baan ku soo qaatay oo la yidhaahdo group major ama takhasuska sugaan iyo afba leh. markaa dabeeto waxaan ka dhigay xamar dugsiyadeeda ka dhigay. ugu horreysaan dhigay wuxuu ahaa barnaamij la yidhaahdo institutionalized teacher training program. markii xamar la tegayey hortee la tegi doono ama aan isku darsannay, waxaa imtixaan laga qaaday wixii macalimiin joogay xamar oo dhan. markaa intii gudubtay oo macalinimo loo qaatay maaha, intii kale ayaa la yidhi hal la siiyo wixii ka dhiman si a u galaa waxbarashada, si ay u galaan dhigidda duruusta dugsiga dhexe ama dugsiga hoose. waayahay. marka halkaasaan aniga nin ingiriisi tababar 6 bilood ah mar walba ayaanu siin jirnay. marka halkaa 2 sanadood wasaaraddana waan ka shaqayn jiray. marka waqtigaas waxay 66kii ilaa
ilaa may waxay ahayd 70 ilaa 72 meelahaas haye 73 waxaan ku soo wareegay hidda iyo tacliinta sare haye marka hidda iyo tacliinta sare ku soo wareegay 73 waxaan qabtay barnaamij la yiraahdo barnaamijka tababarka af Soomaaliga ee ardada shisheeya haye waxa weeye Somali Intensive Program for Foreigners haye marka afar Kuuriyaan iyo laba Chinese aan halka wax uga dhigi jirnay haye iyo laba macallin oo kale haye maamulka barnaamijka waxa hay'ad kulliyadda beeraha haye ardada shisheeyaha ina waxay aqal laga siiyeeyo cuntaba dugsiga sare ee beeraha oo u dhow haye aniguna waxaan ahaa ka mid ahaa macallimiinta la foole degan markaas marka inta ay tacliinta ku soo wareega aqal laga siiyey kulliyadda waxbarashada ee la foole okay marka dadkan aad waxbarayseen dad ku xidhneedooda wasaaradda beeraha caawinayay maya markii af Soomaaliga noqday af dawladdu ku shaqayso ayaa wadamadii hanti wadaaga ahaa u baahdeen turjubaano haye markaasay khaasatan Kuuriyada waqooyi ayaa codsatay in la siiyo in loo tababaro afar arday af Soomaaliga loogu tababaro hawlahooda turjubaano ugu noqdaan waayahay dabeetana markaan 2 sano meeshii ku wadnayna ee sanadii horeba ka tarjumeena Chinese ka laba ku soo darsada haye dabeetana halkaa waxaan ugu wadnay 3 sano oo barnaamij degdeg ah oo af Soomaaliya foreign sheeyaha haye markaan iyo laba macallin oo kale ayaa halkaa ka hawl galay waayahay marka buugaag baan u qoray af Soomaaliya haye waxaan u galnay lab magnetic tapes baan ku qabanay aan hadalkii ugu qabanay marka mar way dhageystaan mar way akhriyaan mar macallimiinta u sheekaysa waxaan u siinay maalintii ugu yaraan 8 saacadood oo af Soomaali markii kaas uu hirgalay ayaa la bilaabay barnaamij kale 76 barnaamijkaas wuxuu ahaa af Soomaaliga dugsiga dhexe iyo hoose waxa tababarka macallimiinta hayay dugsiga xalane oo barnaamij la yiraahdo BB ayaa jiray oo xalane ahaa waayahay barnaamijkaas wuxuu af Soomaaliya ardada wax loogu dhigi jiray haye ma ardada macallimiinta noqonaysa waa crash programkii BB garanaysan bar ma qaarkii meena ka soo bixin habka marka kuwa halkaa inta ay siraadaan waa ugu wanaagsan tahay iyo inama secondary-ga ka soo baxay oo aan iyagu af Soomaali wax ku soo qaadan laakiin doonaya inay macallimiin noqdaan iyo qaar halkan laga doortay BB-da ayaana loogu iman jiray 60 arday ama 45 arday kolba intii la helo ayaa noogu iman jirtay la foole marka barnaamijkaas waxaa barnaamijka secondary-ga barnaamijka dugsiga sare ee tababarka macallimiinta marka kaana waxaan u samaynay برنامج صومالي وككوبان أفسدد مادو أفر نحوه يأفر سوقانا وياهي تاريخ داس بدوين تا af Soomaaliga iyo suugaantii iyo naxwihii iyo waxa soo maaragtay cilmiga oo dadka u gudbinayseen oo aad ku soo baaganteen waqti dawladdii kacaanka ay u heelan tahay in af Soomaaliga hadday qoreen macallimiintiisi la soo saaro iskuuladiina la dhiso waa taariikh qiimo leh waana xanan nasiiba maanta iyo halka meel joogto waynagii dagaala iyo dhibaatooyin badan imika aynu soo marnay ee dawladdii burburtay waatii dadku ay u qaxeen Yurub iyo Mareykan iyo Ameerika markaa dadkii halkaa tegey xaaladda ku hadalka af Soomaaliga kulli adaa ugu xogaalsan ama taga ama haddii biimaayo wax lagaa weydiiyaa siduu yahay luqadeedii dadkii dabada ma sii haystaan oo ma ku adag yihiin mise
nin walaaba meeshu doono ayuu kala dhacaya horta dee bulshada marka saa loo eego waxa xukuma waa fikrado haye marka dadka qaar baa waxay qabaan inuu af Soomaaligu hoos u dhigay qiimihii waxbarashada haye inaga oo quramahay wax laga yaabaa Afrika oo dhanba inay caynka qabaan haye marka fikradda lagu yiraahdo elitism inta waxbaratay unay nolosha xukunto oo hayso ayay ku salaysan tahay taasi dad kale waxay qabaan in arrintaas ay tahay arrin ku hufinaysa ama jidkii ka kaxaynaysa oo nin waliba gacantiisu biyo kaga dhirga markaad adigu gacantaada waxna ku cunayso waxna ku cabayso oo macnaha inaad afkaaga waxna ku baranayso waxna ku qabsanayso ayaa mid walba ka wanaagsan oo xor baa tahay markaas xoraa tahay laakiin haddii kale ood ku habaysan tahay inaad fikrado shisheeye iyo kutub shisheeye iyo garasho shisheeye aad ku xidhnaato dee waxaad noqonaysaa nin maskaxda laga haysto soo ninkaba suuqa ka nidhaahdo laakiin haddaad meel dhexdhexaada doonayso dee waa inaad eegataa afkaarta ka soo baxda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo dhan ee ku gaargaraysan in nabad lagu wada noolaado oo khayraadka loo wada sinaado oo dee la badmaayo sharcigana loo wada sinaado marka taas waxay markaa ku garansanaysaa afkaagu qiimaha uu leeyahay buu ku sheegaya marka waxaa sharci ah oo ay soo saartay UNICEF iyo UNESCO iyo the international community oo dhammi in inanku ilaa uu formative yearska waxaa la yidhaahdo markuu korayo ilmuhu inuu inanku afkiisa maayaan af kale wax lagu barin haddii af kale wax lagu baro wuxuu isu qaadanayaa inuu qof daciifa yahay oo mar walba wuxuu noqonayaa ninaan kibriyaagiisu aan buuxin oo markaa dee waxaan ku halo hadduu karan waaye arda mid kartay ayuu saa u eegayaa markaa wuu bahadilmayaa markaa waxaa la yidhi lankaa laga ilaaliyo haddii af la baraayo waa in inanka waa child's right children's right bay ka mid tahay waa inaan af kale lagu barin afkiisa maayo maxaa formative yearska dhacaya markuu inanku koraayo maxaa dhacaya waa marka la majority age inaga inankii waa qaan gaadhay markaynu nidhaahno maxaa dhacaya intuu inankaasu qaan gaadhaya waxaa ku dhacaya la dhowr wax jirkiisa isbedelaya oo koraya marka markuu laba jirka ugu bilaabmo afku markuu laba jirka ugu bilaabma qaar baa yiraahdo ka horeeya marka hore uu qayliyo oo siraahdo waxaad ka baxday noloshii hooyadii hoose oo tabashu soo baxayo noloshan kale oo ku dhufanaya markaasay bilaabantay qaroonaya laakiin waxa kale oo haweenaya ereyga ugu horeeya marka muqawintu ay xisaabinayaan ereyga ugu horeeya laba jirku ku dhawaaqaya qaar saddex jirka qaar waxa laga yaabaa inay ka yar horeeyaan marka qaarba in bay dee waa bilaadmiga intuu kala yahay koritaankiisu ilaa afar jirka ayuu ku dhammaanaysaa ay koranaysaa marka waxa weeye maskaxdiisa scanning qaadanaysaa marka markuu full scanning ay noqoto oo markuu lix jirka yahay iskaadinkana bal af Soomaali koritaanka maskaxda ee ku dhamaanayso afkaarta iyo dareenku wuxuu kaga baxayaa warku wuxuu kaga tegayaa maqalka afka taabashada ma garanaysaa dhadhanka waxa la wixii maskaxda channelska maskaxda siiyay warka dadkaasaa buuxsamaya oo maskaxdiisu noqonaysaa mid wax walba bulshada markuu dhex galo qaadanaysa macnaha macallin hadduu tago iyo hadduu darawal suuqa jooga la kulmayo hadduu ilmo yaroo la filaho suuqa jooga la kulmayo intiiba wuu la falgelaya intiiba wuu la macaamili karaya markaasaad geynaysaa meesha marka su-aashayni muqadiisa uunbaa halkaa ayuunbaa anfacaysa marka badankoodu luqado kale ay wax ku dhigtaan oo wadanka hadday joogaan luqadiisay wax ku dhiganayaan dadka qurba joogga ah markaa sidee dhaqankeennii iyo af soomaaligeennii isku lamaanaa sidee taasi markaa u caawinaysaa ama ay u dhaawacaysaa
dhibaatuu gelayaa ilmihii markaas haye dhibaatana dee waalidkiisaa la doontay haye waalidkiisana dee duruufihii unbaa ku kalifay haye soo maad garan marka markii dadkii halgankii ka mid ahaa ee qurbajo ee joogay wadamada dibadda qaar baa tashaday oo soo noqday oo wadanka ku soo noqday qaarna way tashadeen oo dibadda qabteen marka imika ku ka hadlayna waa kuwii dibadda qabtay dee kuwii dibadda qabtay mashaakil ka duwan kuwa xaggana wala kuwan wad soo noqday ku dhow mashaakil leeyihiin mashaakilka xaggaasi badanaa waa dee mid luqawiya waa mid sooshiala waa mid wax walba leh marka innagana qoysaskeena inta badan haweenkaa gacanta ku haya raggu inta badan ama shaquu ku maqan yahay ama faras magaaluhu tegayaa ama majlis bu iska fadhiisanayaa caruurta inta badanba warkama hayo marka khaasa waxaa laga yaaba qaar badan oo waalidkooda educated yihiin oo ay mutacalimiin yihiin ayaa haddana ubadkooda u warhaynin oo ay islaamtu uga warroon tahay waa run marka reeraha kale ee taga khaasatan dee kuwa ka yimaada bariga asia kuwa ka yimaada iyagu dhaqankooda way ku adag yihiin oo way hayaan laakiin inta ka tagtaa africa dhaqankooda waa luus badan waxaana is yidhahdeen waxaad keentay meeshii ay ku noolaayeen meel ka fiican oo waxay aaminsanaayeen fikradan ninkii af ingiriisi ama af faransiis ama af carbeed wax ku bartaa inuu ka fikrad wanaagsan yahay ama ka aqoon badan yahay ninkii afkooda wax ku bartaa ama afkooda yaqaana okay marka halyey professor markaa siduu kii ku dhashay meesha inankii ku dhashay Yurub oo kale ama Germany oo kale iyo kii isagoo da 15 jir ama 20 jir galay iyo kii isagoo intuu miyi ku soo koray magaaladii soo maray haddana dhoofay oo xaggaa tegey saddexdaas qaybood siduu luqadii ay u kala taabanaysaa afkii waa saddex shayadoo kala duwan ayay haddaan ka horeeyo kaa isagoo afna aqoonin tegey meesha markaan anigu tegey ingiriiska waxaa 1979 waxaan la kulmay nin ka tegey 1930 intuu markabka ka dhuuntay Iskandariya iyo Boorsaciid baan lahay Boorsaciid ayuu isagoo imisa ay u dhaxaysa markaa adigu 6 ka soo qaad iyo 30 imisa u dhaxeeya 50 sano isagoo 20 jir markaa ka tegey 60 jir waa 70 jir marka Soomaaligiisa markaa dhageysanayso iyo kuma beeran si fiican buu Soomaaligiisa waxba kuma noqon way markuu tuwaab Soomaaligiisa maximize raayo buuxay marka dhibaato kala ma kulmin Soomaaliga wuxuu dhibaato kala kulmay dhaqankii uu la maamuli lahaa dadka Ingiriiska ku hadla meelo kale ka taabanaysaa dhibaato laakiin afkiisi way bixiyahay intay isku iskaranayaan ay suuqa iska heleen inay maxaadooda fadhiisanayaan kaas horta taas u qaba kii caruurtu la tegey ama kii isagoo maxaa tiri kii kale isagoo dhalinyaro tegey oo dibad guursaday meesha oo dibad ubad ku dhalay isagoo yar maahan ka tegey isna siduu luqadaasi marka isagana taa dhibaatadiisu isaga iyo caruurta dhibaataa qabsanaysa haddii aan waalidku gacanta ku haynin xaggaas marka laga tago inaga xaggeenna haddii aan waalidku gacanta ku haynin laba meelood baa ilmaha loo ogol yahay marka ilaa intuu wax baranayo ilaa intuu secondary-ga gelayo laba meelood baa ilmaha loo ogol oo ilmaha labadaas meelna afra ku hayn waxa weeye hooyga guriga iyo dugsiga uu gelayo ilaa secondary-ga labadaas gacanta lagu hayaa gaaraha soo qaada special kaara oo gaari gooni bas gooni oo tababar gooni qaba ayaa soo qaadaya ilmaha marka ilmaha waxa la doonayaa loo faro dhexdood ka dhaco marka ama wuxuu ku maqan yahay iskuul dugsigii heer kasta ku jiray halkaas uu ka qadaynaya Soomaad garan oo ilaa laga soo qaado uu joogaya oo caafimaadkiisu halkaas ku xidhan yahay oo haday dhibaato qabsato halkaas uu ka galaya halkaas looga galgaraya markuu guriga yimaado
سوبر ماركت ككلي متجايو والد كراعة هدانو ده اسكو في اللاين مركا ونقفكم نقول ده نين مجرن يساه سكو اسكع هذا كفكم إنك واحد لقيها بالماء فرتشيرة إنه هو يدي وابي من الله سبحانه وتعالى دقاق عكسو إيبي ولا قيا أبوي نمجرو ما نالها كارو وحاجة ما كقاضو أما يسقي بود الصلاة أما قاد بود الصلاة بود الصلاة وحين كاس ما لما أقول الله ما كاين لقالو وهي حقوق ظلمها يكمل تاعي إنانو qof u naxayo maahay qof kale daanu gacanta ku hayne marka kaasuna taas uu qabaa ilmihii meesha ku dhashay isaguna mushkilad gooni u leeyahay haddaanu guriga support ka helaynin gargaar ka helaynin oo xagga weliba waxbarashada ah ونو أبي تانين دكتور عمل الله يرى أما معلنا أما هو يدي متعلمة حين يا ودي شيء ولي بقى أقونين أف كماش أقونين ودروس الله صعد دقوا عن كان سينين المهم كانوا ضايع مية حلو بيلو يا وحنا قرن عينين أنت بضحك قرن عينين والد كيلو وحبك قرن معي سمعت قرن مركا قفص الدحات وين لطونا هنا بيو يبناي كاسا مركا هداد قفكي وقبطو قف كاسينو عذرو يد اما سوشيال هالنقدين اما هيلث هالنقدين ولي ما دبا دحدقا مركاس ولا waxaa nasiib bay ku lahaan karayaan haddii gurigii aabihii iyo hooyadii ay ku adag yihiin dhaqankeennii iyo afkeennii waxay u noqon karayaan kaab oo afaf kalaba wax ku soo dhigto laakiinse guriga intuu joogo uu badbaadsan yahay haddaan afkeennii aan afkeedii odagii habartuba haddaanay laba hadalba dee bulshadaasu ka mid noqonaya waa run soo maaha laakiin haddii uu dhaqankii iyo afkii ay labada reerku ku adag yahay dee iyagu inay markaa wax ka qabtaan weeye dee iyaga u taallaa cid kale uma taallo waa yahay professor haddii biimaayo marka imika loo yimaado magaalooyinkeena iyo miyigii iyo magaalooyinkii waaba isku darsameene marka halka la yimaado af soomaaligu isagu ka waran qaab dhismaadkiisii isku gudbintiisii naxwihiisii ilaalintiisii haddii biimaayo asluubtiisii xaggee la isla marayaa horta de markii af soomaaliga lagu bilaabay habka aynu hirgelinta af soomaaliga u marnay waa hab military hab military oo nin dowladda u shaqeeyay qof alla qofkii dowladda shaqo ka doonay xalala soo maraa xaladaa la soo wada maray marka waxa weeye waa lagu soo nadiifiyay xalada waa xaruntii tababarka militariga hada meesha tababarka gacan military lagu soo wada mariyay disciplineka militariga lagu barayo ayaa lagu wada baray horumarinta af soomaaliguna arrin military oo camal ah waa guddiga ugu horreysay af soomaaliga la sameeyey waxay ahayd 60kii oo waxaan garanayaa kuwii ku jiray Gandhi iyo Musa Galba xogaya waxa oo macluumaadka u ururin jiray marka report buu qoray reportka uu ku kaliyeystay soo ma qoray waayo dadka waxa la yiri lacag gooniya la shaqo gooniya la siin maaye idinkoo shaqooyinkiina haysta ayaa tan wadaysa marka nin politician dhibaato ku noqonaysa ma la shirkii baan qabanay af Soomaaliga ee kaalay isagoo ballan kale oo siinaysa default ku jira marka way wada habsaameen oo problem bay kale adigu reportkaas sad waxa la ilaamiyay af Soomaaliga maxaynu ku qorannaa marka waxa la yiri nin walbaan bal waxaad soo qortaa alif bacda aad doonayso in af Soomaaliga lagu qoro marka qaar waxay qoreen laatinka Musa Galaali iyo wixii ku xidhnaa laatinka qaar waxay qoreen carabiga luqadda carabiga ku xidhnaa ee ma garanaysaa dee wadaadii sheekh iyo culimada qaar waxay qoreen mid gaar ah oo inoo gaar ah oo inaga sida Cusmaaniyada oo kale marka mar walba markay political problem ay noqoto marka la yiraahdo geeyo baarlamaanka xisbiga ama hoos u dhacay ama xisbiga sare u kacay marka way iska dubaysa ka dhigaan mar walba laakiin markii uu kacaan ku yimi ee qoladan askartu timay waxa la yidhi soo isticlaamadiidin annaga la wareegayna hawshii ninkii nin waliba afka doonta ku soo qor
Soomaaliga afka doonaysa ku soo qoro waxaanu rabnaa 4 buug oo dugsiga hoose dugsiga sare dugsiga dhexe dugsiga hoose haye oo Soomaaliya haye afartaa buug mid Ingiriisi noqdo mid suuqa jugraafi noqdo mid waxa noqdo kuwii dawladinka ولوليني ده يقول مركبات حالكود وعندك والتايب رايتر كي وراقي يحف سيدي عربة ويقبصد كل عربي دولوك ريدي ده يقول حلقة ياباني ميلوت وحقا محاونة تايب رايتر عربي وقش هاي النقدين كل يقول عثماني كدري وحصيه هاي يقول ماشي بكل دحين ده waxay qaban karaan ba technically ba masuur geeso marka markii sanadkii dhamaaday kuwii laatinka u baa wax keenay labadii kale hay'ay keenay dadweynaha October ma laga dhawaaqay October ayaa laga dhawaaqay waxa ka sii daray iyagu hab cilmi way marin markii la sameeyay gudida Soomaaliga waxa laga yaabaa nin luqawiyan ku soo takhasusay ayaa dib looga baahnaa luqawiyan ku soo takhasusay laakiin intii ka baqaysay waa in iyadu istibirtay Soomaaliga iyaga uu istibirtay fiiba ku jiray sida ma garanaysaa Musa Galaali iyo Kennedy laba sadeexna de kuwaan intana ka badano asraarka Soomaalida waa dadqaan ay marka iyaga baranaynin laga qaadan maayo iyagana waqti baa riixayo waa taydadeen waxa la doonayay in Soomaaliga qorno ballan qaadiyadeedina ayaa maartay dawladda ku jirtay yahay marka taariikhdaas oo dhan uu leeyahay inka afkeena xaguu taagay waqtiyadan qadarintiisii ku hadalkiisii asluubtiisii ilaalintiisii hadii biimaayo isfahamkiisii markaad eegto waqtigan maanta la marayo sheeg waqtigan maanta la marayo horta iyagii looma dhaamin qoladii askarta ahayd afka looma dhaamin wax u dhaama ma jiro wuxuuna jiray baan u maleynayaa madaxweynaha Djibouti oo isagu yara dadaalay oo doonay inuu dhiso academy of Soomaaliya isagana politically ayaanay taaso bulshadiisa ayaa kala qaybsan marka tax bearis money meel gooniyo lagu kharash gareeyo de politically wax ma garanaysa oo laba luqadood bay kala leeyihiin saddex luqadood baa meesha jirta Carabi Afar iyo de Soomaali isagana technically marka meel buu la doonay marka aniga waxay u maqaalaan mar afar madaxweyne oo Soomaali isugu yeeray Djibouti oo madaxweynaha ku jiro madaxweynaha ballan qaaday aniga maqaalaa Maxamed سيلاي محمد سيلاي الحوينة أنا بلغ قاضي إنه أكاديمية سمية حلقا waxay taray gareeyeen marka samsamintii ay joogtay committee bay tasaartay report bay soo qabteen isaguna report buu soo diray labadii report bay halkan ay yaaliin laakiin markay inagu dhaqaaqi weynay isagu marka warkiisa xamar buu la tagay marka gudidii uu sameeyay ee markaas la approve gareeyay oo inaga dhow inaga jiraan oo ma wadbaaro ku jiro hadraawi iyo gaariday ku jiraan intii ku jirtay gudida ayaa xaqaad la geeyay arintii marka waxa maqlay iyadoo la dhagax dhigaya radio-ga ka dhageystay marka nin u madaxaayo la oran jiray af Maxamed Afrax xaqaas u jooga wax lagu qabta halkaana ama imka war uma hayo laakiin halka wax weyn ka socdaa ma jiro laakiin magaca academy waxa laga yaabaa inuu jiro halkan marka su'aasheedii dib aan ugu soo noqonay maanta af Soomaaligii ku hadalkiisii qiimeyntiisii qadarintiisii fahamkiisii iyo isku weydaarkii inta aan qurbada la tagin bal ka waran xaaladdu ku sugayay wuxuu ka dhiman de Soomaaliya waxa Soomaaliya ka dhaxaya waa kidfamaya wixii naga dhaxay labadeena miskii ka qarin miskii la kidfamaya halkan waa kidfamaya Soomaad garan wuxuu doonayaa wixii Soomaaliya wax kale jirin marka hadayna ama waxaan ku dadaalnaa waxa weeyaan bulshada dhex dhigno oo ay iyadu noqoto
masafti kala soocayay marka buugta taasaana wanaagsan fikrad ma haysatid fikrada suuqaad keenaysaa marka suuqii baa muhiim ah in meel laga hogaamiyo marka qaarkood jiro walow taas uu muqadaana practically sida duwada ka soo dhacday inuu nooga horeeyo afafka horumarta ayaa la nooga horeeyay af ingiriisiga iyo faransiiska la badanaa la eegtaa marka faransiisku wuxuu yidhaahdaa waxaan akaademiga faransiiska siin waa inaanay suuq gelin marka niman culimo baa jira Sorbonne University meelaha fadhiya French Academy oo yiraahdo buugga la qoraba eega oo midna diidan midna sii daaya way maamulaan marka may kula tahay kuwaas oo kale imika ma aragtay maadaama dad badan oo af Soomaaligii cilmi u leh naxwihii cilmi u leh in sidaas oo kale la sameeyo guddi sidaasa oo bilmetr baba kor joogto ilaalisa qardajeexa wax ka ilaalisa may kula haboon tahay hada waxa la doonayaa in la eego arrinta waxa tirigelaya Afrikaanka ayaa guddiga jirtay imika Soomaaliya oo Afrikaanku sameeyay waa Soomaali waa 13 waxa sameeyay culimo Afrikaan oo Academy for African Languages oo kamida UAU-da ayaa jirta marka Soomaaliga baa lagu wareeray marka mid doonaya Soomaaliya inuu qorto wixii uu qoray inay hagaagsanayeen ka siin dawlad ka eegtay baadeen marka arrintan ay soo gashay marka waxa la yiraahdaa Afrikaan maxaa afka ka yeelnaa ka soo baxaya marka Academy baa la sameeyay oo Maali joogo ayaa qaatay waxa ay dadku inagu qaadantaa laakiin way muddo burburay kii Soomaalida meel wala sugu yaray laakiin ay sameeyeen wixii la publish gareeyay الله قري السوق يالي ورصدين تروح هنا ولا ما يدرين تروح هنا القيمة تروح تيجي الدور بدين هي تشجع يسوي هنا تروح تشجع ولا بيهم تشجع كان قاعد كراعي هالكان تروح قاعد كان كسر راعي محانا هذا ما يجي يصوت ركارون كراعي marka waxaan fuulay shan maalmood lix maalmood marka waxaan soo saarnay barnaamij aan saddex sano ku shaqeynayno mid kale ka dambeeyay oo aan ku qabanay lusaadka kii lusaadkana afar shan baan lagu qaado shan nin ayaa intii aan halkaa ku 20 bay ahayd shan baan halkaa ku tagnay shantii nin waxay ka mid ahaayeen 13 nin ee la qortay wuxuu naga maqnaa koonfurtan argagaxa sahamar way naga maqnayd waxaana naga maqnaa Kenya laakiin kiilka shanaad Djibouti iyo Somaliland way joogtay marka 13 iyagu muqaasirtay marka adigu marka hawan ku jiray hadda shirkan baan ku qabanay igaad shirkan baan ku qabanay shirka dambe ayay noogu yimaadeen laba Kenyan iyo mid reer koonfureed كان وحلو سميه أكاديمية مهمة عمر كان وحقيب كعها أكاديمية سميه عمر قيل إسماعيل عمر قيل وقد قبل قادتي سلاحيد لما قعابي أفرتم جوردي أف سوماليكا إذا الحسن دمية فرت جوردي بسانة وحلو قاتو جبوتي ومركنا نقول أفرتم دحوينها ماشي يسقط تجي مركنا يقول دم يستنبيد هنا كاوي هيك صباحا أي روح كوكب صنعنا كي هيك صباحا أنا قد هذا سميه إسماعيل عمر قيل لي إسماعيل قيل لي أي أحد إنه كل حاجة تاريخية هاي نما نسلن مال لما هاف سومالي مال لا حكومة متشتو لكن عسى أن تكرهوا شيئا فيكون خير لكم وخلوها هلا أنت النعمة يسطو نقول علينا يكون كل هنا بتاعي مركا إنجليزكو فرانسيسكو وحسابي يقول ده مركا وح نقدم كيسة iyo dhihidiisu iyo kasabtiisu baa Faransiis tahay mooyaane wax kale suuqa lagu sii deyn maayo laakiin Ingiriisku wuxuu sameeyay waa habta furan
waxa xukumaa markii buugka qora haddaad buug naxwaha qorto ama cilmiga afafka ha ahaad qorto afkooda ku qorto afkooda kaga shaqayso kaasunbaa macallimiinta oganaysaa wixii ay ka kasto macallinkii af ingiriisiga dhigayay kaas intuu akriyo ayuu wixii isagu waafaqo wixii aanu waafiqinna mid kaluu qorayaayo wuxuuna waxaa ma waafaqin marka xaalkoodu waa horumar ku salaysan waxa uu arko qofka qoraagii sax iyo wuxuu arko qofka qoraagiina sax daawadayaal iyadoo barnaamijkeenii aynagu talagalnay inuu socdo 35 daqiiqo waaf soomaaligii badweyn yahay oo dalal badan oo aynu jaarnahay ama aynu la kala wada degan yahay dadkii af Soomaaliga ku hadlayay taariikh dheer uu leeyahay af Soomaaligu wax qabadiyo badan oo firiqsan uu leeyahay kuma soo geeyeenayno inaanu hal barnaamij aanu ka qabanno marka waxaanu isla qaadanay inagii qorada farsamada TV-ga bulsho inaanu barnaamij labaad aanu ku xiriirino sida awgeed waxaan inaga codsanaynaa inaad la socotaan qaybta dambe ee barnaamijkaas soo galaysa haddii aan la idhaahdo waqtigii caadiga ahay qurbajoog haddii qiirahay ku hayso dalkana qiimaad u hayso qulubtaadu ay lahayso qurbajoog haddii qiirahay ku hayso qurbajoog haddii qiirahay ku hayso dalkana qiimaad u hayso qulubtaad somtel tab laguugu adeegiyo 10 taabo cilmi baa leh tamateediyo xooguna tabta weeye hilaacee somtel yaan la moogaanin sarcadii adduunkee u saraysay internet adeega 4G oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda Somtel adeegan oo ah mid xawaarihiisa ama speedkiisa uu xoog u sareeyo second-kiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga iyo flashta internetka meel kasta iyo goor kasta video call 4G جوندوغان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وسع ليفاندوفسكي adeegyo sareeya internet casri ah oo xawaarihiisu sareeyo qiimo macquula oo loo daneeyay dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta second kasta iyo saacad kasta ha moogaanin Somtel